quraanjada cadda waxa ay ka mid tahay cayayaanka yaryar oo u nool sida mustacmaraadka waxayna dhisaan hooyo aad u waaweyn inay hooy sameeyaan waxay u baahan tahay inay isticmaasho micyeeda yaryar oo ay ku soo qaado dhoobo ka kooban ciid hooyga ay samayso quraanjada dhererkeedu waxa uu gaarayaa 3 ilaa 4 mitir hooygani markii la barbar dhigo quraanjada waxa ay u dhigantaa guryaha aadka u dhaadheer masaaxada weynna ku fadhiya hooygan ay samayso quraanjada cadda ayaa waxa ay leedahay marino aad u qoto dheer marinadan ayaa waxa ay marayaan ku dhawaad 1 milyan ama 1 milyan iyo bar oo quraanjo ah qaabka uu samaysan yahay hooygani balac ahaan waxa uu leeyahay god u qaas ah boqolada quraanjada qaybo beera ah baqaaro wax lagu kaydiyo iyo meelo hawada laga qaato quraanjada cadda waxa ay u istaagtaa in hooyga dhinacay ka dhisaan oo ay hagaajiyaan dhinaca kalena waxa ay u diyaar garoobaan inay iska difaacaan weerar kasta oo kaga yimaada dibadda dhanka kalena beerahooda ayay tabcadaan hooyga ay samayso quraanjada cad ayaa waxa ay ka dhigtaa meel hawadeeda fiican tahay laguna noolaan karo isla markaana isku dheelitiran heerkulka iyo hawada godka si ay quraanjada cad u hesho jawi wanaagsan ee ku habboon nolosheeda ayaa waxa ay heshay xal cajiib ah oo dhanka sare ee saqafka hooyga waxa ku yaala daaqadahani ayaa waxa ay ka samaysan yihiin dhoobo jilicsan oo khafiif ah si markaasi hawada ay u baahan yihiin u soo jiitaan tani ayaa waxa ay sababaysaa inay khafiifiso heerkulka hooyga daaqadahan ayaa waxay door weyn ka ciyaaraan qaboojinta hooyga quraanjada cad ayaa waxa ay ka mid tahay tusaalooyinka ay ku wareereen dadka ku takhasusay cilmiga wax soo saarka waxaa jira nooc kale oo ka mid ah quraanjada taasoo laga helo waqooyiga Australia waxay hooygeeda u dhistaa qaab aad u ballaaran dhinacyadeedana waxa ay sare u kacsan yihiin sida mindiyaha oo kale asirta ku aasan hooygani ayaa waxa ay tahay in qoraxda gees ay ka marto oo in yar ay qabato quraanjadan hooygeeda ayaa waxa ay dhistaa xilliga duhurkii oo ay qoraxdu ku aadan tahay bartamaha cirka asaqafka hooygani in yar ayay qoraxda ka soo galaysaa midan ayaa waxa ay sababtay in xaraarada hooyga ay noqoto mid khafiif ah noocan ka mid ah quraanjada ayaa waxa hooygeeda u dhistaa si isku dheelitiran oo dhanna u badnayn laakiin waxaas oo dhan waxa ka sii cajiibsan in quraanjadani ay indhaladahay haddaba xayawaankani aadka u yar oo indhoolka ah aan marnaba waxna arkaynina 1 sentimitir ba Allah ka dhige sidee ayay ku dhistay hooygani naqshadaysan ee dhaadheer tani ayaa in badan oo insaanka ka mid ah aad ugu wareereen taasoo ay fahmi waayeen qorshooyinka sameynta waxyaabahan hindisaha iyo injineernimada xambaarsan quraanjo kasta waxa lagu hadeeyay waxyaabahan oo dhan in ay sameeyaan si shuruud la'aan ah waa ilhaamka awoodda Ilaahay adigana Ilaahay awood sare ayuu ku siiyay awoodda ugu weyn Ilaahay uu ku siiyay kuguna galadaystay waa aqliga si aad markaasi ugu fikirto waxyaabaha aad soo ziyaadin kartid hase yeeshee cuskub oo meel cayugnow waa ceeb adduun